وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلقة كواد قصة نبي الله حلقة لواد قصة نبي الله نوح عليه السلام. سورة لها قرآن كإلهي نوار رمي قصة النبي نوح وإله طوان سورة ودوي. سورة كواد وهو الرئيس وسورة اللي يقان سورة الأعراف. سورة الأعراف مركين في إنه محي كهذيسا محي فلانقينيسا محي كلا دقيسا markii la rabo inaynu fahamno waxaa muhiim ah inaan dib ugu laabano oo dib u fiirino suuradu aayadaheedu iyo mawaadiicda ka hadlaysa iyo qaabkay wax kala dhigayso. Allah suuratul A'raaf markuu bilaabay waxaa lagu bilaabay tabi'u ma unzila min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. noloshu waa laba way in qofku inuu Ilaahay raaco Ilaahay u hoggaansamo manhajkiisii dariiqiisii wadadiisii inuu raaco oo Ilaahay talada u dhiibto Ilaahay uu weli ka dhigto Ilaahay uu hoggaanka u dhiibto ama aysan lahayn in uu ceen Allah ahayn uu weli ka dhigto talada u dhiibto adeeco u hoggaansamo xeerkeeda qawaaniinteeda manhajkeeda u raaco. Allah suurada markuu wuxuu leeyahay amar bal bixi ittabi'u waliri kii la raaca wala tattabi'u kan kii Allah waxaan ahayn ya la raacin. suurada marka iyo intaas wixii ka dambeeyo waa faahfaahin la faahfaahinayo dadkii amarka qaatay wadada alla raacay iyo dadkii aan raacin oo loo soo bandhigayo qaab qisas iyo sheekooyin ah oo nala hordhigayo rasuul inuu Ilaahay soo diray rasuulkaas oo khayr iyo wanaag ku baaqayo dadna ay raaceen dadna ay raaci waayeen ay cid kale tala u dhiibteen. haddaba suuradu al-A'raaf Allah wuxuu uga hadlay 6 aayadood qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam. الله وحوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح وحان أدرني قومكي يتلكي والله دري والي وحيركي سنة الله وبنادم كوا وحاكمة سنوينك الله وحاكمة عد ما أمد مركي للروائن لبرارجو حقي ودرع عاد إن لقو توزيو وحالو سودري الرسول أي قانون وإياه كذا شيء رسول كاسر وقهاليو si ay isku fahmaan la isku garto marka iyadana waxa dhacaysay dadka fidrada ay saleemka tahay fiyow inay xaqa raacaan rasuulka raacaan dadka kale ay raaceen. marka Allah wuxuu leeyahay waxaan u dirnay nuux baan u dirnay tulkii waa loo diray. faqala markaas wuxuu yiri si degdeg ah hawshii markii mas'uuliyadda loo dhiibay mas'uuliyaddu ka saaran amaanada saaran buu dareemay waa uu la booday. وحول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلك يو الله أضاموا النغضة منها كيس الراعة سوء سيجعليه كد ذلك وضل إذن جاحي قال يسمى كل أضاموا هذا يسمى كل هايدين هذا إله أو بمعنى تليها نوشي نو تليه مركا وكلمة مركا ورسول قال وصادر إليه ماذا ومضى ويسوء لحجتها ويميليسان تهي وضد دين لعن ولا مركو رسولك كلمة لا دحي ماذا وحقه وعديه ومدي سري هالهيد ويكلا بحيان قيبنا وحي نقونيان كو حق الرعا قيبنا وحي نقونيان قيب حق كورتماد وحق لديالنتا مركا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله كريمه قان سما تليا عن إساياهين
oo xaq oo noloshiina inuu u taliyo ma jirto. muxuu leeyahay marka maxaas ku bixinaya nabiyullaahi nuux inuu dhawaaqo u qayli u ordo? waa cabsi uu tolkii u cabsanayo wey. uu leeyahay innii akhaafu calaykum cadaaba yawmin cadiim, waxaan idinkaga baqayaa cadaab weyn oo imaan doono ayaan idinkaga baqayaa. halkaa waxaynu ka arkaynaa oon ka qaadanaynaa yacni nabiyullaahi nuux diinta uu la yimid oo islaamnimada ah in ay ku baaqaysay in aakhira la rumeeyo. markii dad waxaa jiro xaqa aan ogolayn, xaqa aan jeclayn, xaqa dhibsanaya, dadka iyaga ilaahay wuxuu siiyey magacaasoo ah in loo yaqaano mala. dadka iyaga ahaa marka way hadleen, qaala mala waxay yidhahdeen, mala waxaa weye waa qolada madaxda ee hoggaanka hayso ee ummadda u taliso, halba dhinacay rabta ummadda u jeediso, iyagaas iyo inta ka agdhow ee isku danta yihiin, isku maslaxada yihiin way mala. kuwaas oo u arka dacwada rasuulka uu la imaanayo inay tahay dacwo khatar ah, kursigooda, dhaqaalahooda iyo waxoo dhanba khatar ku ah. oo min qowmihi nebi nuux tolkii ka mid ah maxay yidhahdeen, innaa anagu lanaraaka waxaanu ku aragnaa oonu kaa malaynaynaa oo noo kaa muuqato inaad tahay fii dalaalin mubiin, qof baadinimo cad ku dhex sugan. baadinimada waa maxay? xeerkii iyo qaab hiddihii dhaqankii lagu soo wada noolaan jiray, xeerkii lagu wada socday, manhajkii lagu wada socday, in ha laga soo tago ilaahay keliya ha loo go'o waa wax cusub wey. waa baadinimadaad la timid oo war aadan cid kaaga horeysay aysan jirin. marka baadinimo cad baad ku sugan tahay, dadka baasutaa inaad naga hor keento bay leeyihin. qaala wuxuu yidhi markii nabiyullaahi nuux calayhi salaam tolkii ay tuhmeen, ay baadinimo ku tuhmeen, ayuu isdifaacaya, uu xaqa u caddaynaya. waayo nimankan mala'a waa dad waxay haystaan warbaahintii, dhaqaalihii bay haystaan, waxoo dhan bay haystaan. markaasi dadka waxay caqligooday qaabkay rabaan ka yeelayaan, u gedgedinayaan, ciday rabaan bay u falxumaynayaan, ciday rabaanna u qurxinayaan, mabda ay rabaanna way ka dhaadhicinayaan, mabda ay rabaanna u diilayaan. qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow, isagoo dareensiinayo in uu dantooda ka shaqaynayo, maslaxadooda inuu u wado, dan shakhsi inuusan wadin. wuxuu yidhi laysa bii dalaalatun, aniga baadinimo iguma sugna, wax baadinima aan ku suganahay iyo qallooc aan ku suganahay haba yaraatee ma leh. walaakinise anigu rasuulun fariinwada ayaan dhahay oo min rabbilcaalamiina, caalamiintoo dhan rabbigii lahaa, daryeelaya, xanaanaynayay, maslaxadooda mar walba u taagnaa, rabbigaas xaggiisa ayaan farin idinkaga wadaa. oo risaalo walba uu alle soo diro, rasuul walba alle uu soo diro, waxa uu ku baaqayo waxaa weeye dadka dhammaantood in ilaahay loo cabiidiyo, dadka in laga wada hoos saaro dadkan dhawaaqidda ee xukunka haysto ee ummadda raba inay naarta ilaahay u kaxeeyaan, iyagoo fiirsanayo maslaxadooda iyo macmacaankooda adduunyo keliya. muxuu leeyahay marka, uballiqukum waan idin gaarsiin risaalaati rabbii, rabbigay farrimihii ii soo diray oo uukii soo dhiibay waan idin soo gaarsiin, waan idin caddayn. oo qofka risaaladu iyo fariintu iyo cilmigu waa ammaano uu ilaahay kugu ammaanaysta wey. oo lagu leeyahay ammaanadan ummaddaas addoommadadaas baa u baahan, kac qaad uge ku badbaadi, hal liibaan adduun iyo mid aakhiraba. marka muxuu leeyahay uballiqukum risaalaati rabbii, rabbigay farriimihuu ii soo dhiibay oo keliya unbaan idin soo gaarsiinayaa, unbaan idin caddaynayaa. wa ansaxu lakum, waana idin caqli celinayaa, waan idin nasteexayn, dantiinaan idin sheegi, maslaxadiinaan idin caddayn. saas buu leeyahay. wa aclam waan ogahay min allahi alle xaggii maa laa taclamuun waxaydan ogeyn. alle waxyaalo badan idinka ogeyn banaan ogaa. marka maadaama aan xag alle idinkaga aqoon badanahay, isoo raaca oo xaq iyo wanaaggaan idiin sheego qaata. waxyaalihii ay kale sheegeen nabiyullaahi nuux tolkii, gaar ahaan qoladii madaxda ahayd markii ay dacaadeynayeen, waxyaalihii ay sheegeen waxaa ka mid ah inay leeyihiin markii uu adiga ilaahay ku soo diray adoo xun oo bini aadano nyaanyow ah, muxuu malaa'ig u soo diri waaye? tii baa marka alle uu ka jawaabaya, uu leeyahay nabiyullaahi nuux awaa cajibtum, oo kaalay miyaad la yaabteen, arrin la yaab miyay noqotay, an jaa'akum inuu idin yimid dikrun waano caqli celin. waanadu waa maxay? dikrigu waa maxay? dikrigu waxaa weeye
qofka bini aadanka ah markii la abuurayo waxaa ku abuuran 3 arrimood. kow, inuu ilaahay jeclaado, inuu ilaahay barto, inuu ilaahay u khuduuco. waa abuur bini aadan ku abuuran wey. qofka markuu adduunyada yimaado oo la dhalo, adduunka uu yimaado, uu barbaaro, uu weynaado, wixii ku abuurnaa oo aan ilaahay barto, ilaahay jeclaado, ilaahay u hogaansamo, waxaa ka leexinayo adduunyo iyo shaydaan iyo naf. 3 arrimood baa qofkii wixii ku abuurnaa dhinac marin. rasuulka marka muxuu wadaa? waa dikri, xasuusin. xasuusinaas xagee ka timid? min rabbikum, xagga rabbigiin bay ka timid. maxaa qofka la xasuusinayaa? wixii ku abuurnaa oo ah inuu ilaahay jeclaado. calaa rajulin minkum, qof idin ka mid ah uu ilaahay u soo dhiibay. oo markay leeyihiin ilaahay bini aadan lama hadli karo, uma waxyoon karo, macnaha maxay? waa xaqirid iyo si ay yasayaan jinsigan bini aadanka oo ay leeyihiin uma qalmo inuu waxyi ilaahay qaado. marka calaa rajulin minkum liyundirakum, risaalooyinkaas iyo fariimahaas xagga alla ka yimid maxaa lagu talagalay? kow, liyundirakum, in laydinkugu digo, laydin yidhaahdo waddadaad ku socotaan ilaahay raalli kama ahan, ilaahay ma jecla, waa waddada ilaahay kugu cabanayay, waa in loo digo wey. digiddaas marka maxay samaynaysaa? qofka dareenkiisa bay kicinaysaa. dareenkaas marka maxay ku bixine? taqwo iyo walitataqu, inaad ilaahay iska jirtaan, xuduuddiisa ilaalisaan. labada arrimood markii la sameeyo oo waanadaas ay xambaarsan tahay, markii la qaato waxaa ka dhalanayo arrin kale oo ah walacallakum turxamuun, inaad markaad mudan tihiin ood xaqiiqo u tihiin in laydin naxariisto, naxariis ilaa inaad ku guulaysataan baad helaysaan baa layidhi. haddaba iyadoo sida xaqa loogu caddeeyey, waanada saa loogu bandhigay, maxay sameeyeen? alla wuxuu leeyay fakadabuuhu, waa ay beeniyeen nabiyullaahi nuux wanaaggii iyo khayrkii uu keenay. fa anjaynaahu, waanu badbaadinay, waanu samata bixinay, isaga iyo waladiina macahu, intii isaga rumaysay oo raacday ee la jirtay. xaggee lagu badbaadiyey? filfulki, doontii baa lagu qaaday. alla marka wuxuu leeyahay wa aqraqnaa, waanu maanshaynay aladiina kadabuu, kuwii beeniyey. maxay beeniyeen? biaayaatina, aayadaha alla. aayadaha alla waa maxay? waa mucjizaadkii nebiga lasoo siiyey, waa aayadihii kitaabkii lasoo siiyey, waa aayadihii kownigaha. 3diiba waa ay beeniyeen baa layidhi. sababta waa maxay? 2 tilmaamood ay leeyihin buu ilaahay caddaynayaa. innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowman, dad bay ahaadeen baa layidhi. kaanuu maxay ficilkaas muxuu faa'iideynayaa? iyo isimkeeda kaana isimkeeda ay faa'iideynayaan falka ay samaynayaan inay tahay fal joogto ah. joogto tilmaam ay gaar u leeyihiin bay ahayd. kow, maxay ahaadeen qooman, dad caamiina indhala, xaqa aan arkin, wanaagga aan arkin, wuxuu ilaahay u sheegayo, wuxuu ilaahay u soo bandhigayo, rasuulkiisa wuxuu ku baaqayo dhanba waxay ahaadeen dad ka indhala bay ahaadeen. marka qaabkaas bay suuraddaas inoogu soo bandhigtay qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullah.